السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمانتين ميل كستا جوجتان كسو دوادا بربار سما channel. رمضان مبارك. رمضان تي وحبا كما يهارين إلهي نوغو دمي رمضان تن إن شاء الله عافمات إيه عبادة صوبان إلهي عمل كيان سو سميني صونكي هاي نغا أقبلو إيه انتي نوع هديبا أو هاي نغا ديغا كوي ليلة القدر غلا كلما إن شاء الله. waxaan ku leeyahay kusoo dhawow barbaarsama channel haddii aad nagu cusub tahay muuqaalkani uu yahay kii kuugu horreeyay aad daawato kusoo biir bahda barbaarsama channel. waxaan kaga hadalnaa arrimaha tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee carruurta, dhiirigelinta waalidiinta iyo weliba dhacdooyinka iyo wararka ku saabsan dhinaca carruurta ee dalka Jarmalka iyo guud ahaan adduunka oo dhanba. kasoo mid noqo bahda barbaarsama channel. haddii aad hore u joogtin waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay in aad soo dooratay in aad barbaarsama channel kusoo biirto. sii share garee, like taabta, insha Allah dhiirigelintu waa xaggeena. markan iyo mowduucaan inoo wadaa muxuu noqonayaa? markan iyo mowduucaan inoo wadaa waxa uu noqonayaa mowduuc ka mid ah mowduucyadeennii dhinaca tarbiyadda iyo barbaarinta carruurta. waxaan doonayay in aan ku weydiiyo adigaagana daawanaya dhowr su-aalood. ma isweydiisay weli ama ma aragtay qof istus ah? af Soomaaliga waxa ay dadku yiraahdaan qofkaasi dadku istustusa, yacni hadduu wax sameynayo, hadduu hadlayo qof kale yara eegayaa inuu qofku soo eegayo in kale oo ismaqashiinaya, hadduu wax qabanayo aduu kale waa fahmaysaan qofka ismuujin ku jira mar walba. ma aragteen qof kale oo had iyo jeer intuu dantiisa ilaawo oo naftiisa ilaawo ta dadka kale ka shaqeeya? waad aragteen baa laga yaabaa kaasna. ma aragteen qof kale oo isaguna haddii uu qof xidhiidh la leeyahay ama oo qof isqabaan oo u reer leeyahay ama uu saaxiib qof leeyahay oo qof dhalinyaro ah yahay ama de dhalinyaro ayuu ahaan qof saaxiib leeyahay, dabadeetana qofkaasoo mar walba si xidhiidhkaasi aanu u burburin dartii ugu dulqaadanaya waxyaaba aad isagoo u dhibaya, ilaalinaya xidhiidhkaasi inaanu jabin, ka baqaya qofkaas inuu waayo, mar walba baqdintaasi hayso. baqdintaa qofkaas inuu waayo ama saaxiibkii ha ahaado ama qof nolol ay wadaagaan oo ay isqabaan ha ahaado ama qof ma garanaysaa ay asxaab yihiin ha ahaado, wuxuu doonaa qofkaasi ha ahaadee qofku arkaba isku dhadhajinaya oo ilaalinaya oo ma garanaysaa mar walba ka cabsoonaya in xidhiidhka qofka kala burburo, oon odhan karahayn xataa waxaa ma samayn kareegadaa oo isla haddaad tidhaahda sidaa bilow qofkani kaa tagaa ama xidhiidhkiinu xumaada. in badan baynu Soomaalida ku aragnaa haddii aad heblaayo waxaa ku tidhaahda bilay kaa xumaata, deetana qofkii kala dartii wax u samaynayo. haddii aad calaamadahaas aragtay ma isweydiisay haddaba xaggee ka yimaadeen? waxaan doonayaa maanta inaan kuu faahfaahiyo si aad uga digtoonaato ilmahaagu in imika dadkii waaweynaa way waaweynaadeen, inagu waynu waaweynaanay, wixii aynu noqonaynina waynu noqonay. imika inaga waalid ahaan iyo ka dad waaweyn ahaan laba midbaa inoo taala in aynu wixii baranno sida looga gudbo xaaladan. laba waxba aan idhaahdaba. marka hore waa inaad isogaato xaaladaad ku jirtaa tay tahay. mar labaadkana waa inaad baadho ood barato sideen uga gudbaa xaaladan. taasaa imika haddaynu dad waaweyn nahay inala gudboon. haddii aad xaaladaa aragtay qof ku jira ama aad jeclaan lahayd siyaabaha looga baxo in laga soo hadlana kommentaarkaad kusoo qoraysaa, insha Allah waynu kasoo hadli doonaa iyadana. laakiin imika waxa aynu awoodda saaraynaa ilmahan aynu haysanaa weli muu noqonin sidaa aynu sheegayno. haddii uu noqdayna waa laga gaari karaa
weli wuu yaryahay oo geedkii toosintii baa lagu jiraa. Si aanu haddaba u noqonin qof weligii alihid qof ka daba lusha, qof maaragtay dantiisa ilaawa oo halkii la doonaba la geeyo, qof ma garanaysaa ayaynu maanta ka hortageedii iyo waxa keena ka hadlaynaa. marka ugu horeysa ilmaha yar wuu faraxsan yahay, noloshiisa oo dhan wuu ku faraxsan yahay. waa sanadada ugu horeeya bilowga noloshiisa, sanadka 2 sano marka la gaadho. ilmahani waxa uu adduunka ugu jecel yahay inuu arko waa hooyadii iyo aabihii. waxa uu ugu jecel yahay inuu la ciyaaro waa hooyadii iyo aabihii. cidda uu markasta jecel yahay iyagoo faraxsan inuu arko waa hooyadii iyo aabihii. haddii aad ilmo dhashay ama aad waalid tahay oo aad imika daawanayso, waxaa laga yaabaa inaad aragtay haddii wejigaagu uu isyara bedelo. waa haddii aad u fiirsatay waad aragtay. haddii wejigaagu isbedelo ama aad daalantahay ama aad cadhaysan tahay oo wejigaagu saa u yara xidhan yahay, ilmahaaga yar xataa haddaanu hadlahayn kolba dhinac buu kaa eegayaa, wuu ku taabanaya, wuxuu isleeyahay maxaa ku dhacay, wuu ku eegaya. laga yaabaa inuu ku dhunkado, mac ku siiyo, laga yaabaa inuu san kuu qabto, ku eego. haddii uu hadlayo markaa uu qof hadal karaya yahana wuu ku weydiinayaa, hooyo maxaa sidaa ugu eg tahay, wejigaagu waayo saa u xidhan yahay. taas waxay ku xidhantahay laakiin hadba sidaad isku haleeshaan eed waqti isu siisaan, markaasaad ogaan karaysaa calaamadahan oo kale. sidaas ay tahay ilmaha yar wuxuu jecel yahay waalidkii inuu mar walba wejigiisu furnaado oo u faraxsanaado. haddaba xillima marka la soo gaadho ama marka maxay ku dhacaan calaamadaha qofkan aan idiin soo sheegay, qofka sameynaya waa qof dareemsan ama uu ku jiro dareenka ah ma tihid qof muhiim ah, yacni qof muhiim lama tihid. markaa maadaama wax qiimo ah lahayn oo muhiim ahayn, qof kasta wuu kaa tegi karaa, wuu kaa mashquuli karaa. saas darteed ugu jiraa isku dhadhejinta iyo ilaalinta. sidaasoo ay tahay, markaa ilmihii wuxuu gaadhayaa xilli uu rabo inuu isagu wax sheego. waxaa laga yaabaa in hooyadii ay mashquul tahay, waxay leedahay mashquul baan haye iga dhaaf, imika ma haleelaya marka ladii sheegaya. waa hadday ugu fiican tahay oo si fiican ula hadashay. haddii kalena ilaa maantu ilmihii hadlayaa maba u jawaabaysa, hawsheeda iska wadanaysaa, iga daa qaylada bay ku odhanaysaa. baa laga yaabaa kama soo hoos qaadaysa waxa le wuxuu sheegayo. haddii markaa aabihii hooyadii wada joogaan, ilmihii wuu dhaqaaqayaa, dhinaca aabihii buu kacayaa. waxaa laga yaabaa inuu aabihiina sidoo kale ama telefoon ku hadlayo ama hawl kala wada isaguna, ama combyuutar dul fadhiyo ku shaqaynayo, uu hawl kale ku maqan yahay ama moobilkiisaba eegayo. qofkii yaraa wuxuu soo arkay hooyadiio ama moobilkii eegaysa ku mashquulsan, ama tv daawanaysa ama hawl haysa oo hadalkii ka hoos qaadi weyday. dhinacii aabihii markuu u kacayna waa hadiiba uu la joogo. aabihiina sidoo kale waxaa arkay inuu isna mashquul yahay. halkaasa waxaa ka bilaabmaysa ma ihi anigu qof muhiima, inuu dareenkaa dareemo ayaa halkaa ka bilaabmaysa. wuxuu odhanayaa oo naftiisa iyo niyadiisa gelaya oo nafsadiisu dareemaysaa ma ihi qof muhiim ah. aabbahay iyo hooyaday waxay haystaan wax kaloo aniga iga muhiimsan. taas waa laga soo gudbay. dareenkaasi isagoo ilmaha ku jira oo sidaas ugu dhacay ayaa haddana waxaa laga yaabaa inuu arko hooyadii ama aabihii oo tv-ga daawanaya. ilmahani waxa weeyaan intaa waxa weeyaan sida maaragtay ilaaliye, muraaqib weyn, waa ilaaliye. indhihiisan caruurta aynu moodayna inay meelahan iska joogaan, intaa way u fiirsanayaan waxaad adigu samayso. intaa way u fiirsanayaan kelmadaad tiraahdo, maxay ahayde dhaqaaqaad dhaqaaqdo, ficilkaad samayso, iyaga waa wax u tirsan oo u xisaabsan oo intaa way ku eegayaan. haddana wuxuu arkayaa adoo moobil ku hadlaya ama tv daawanayo oo aada u qoslaya. wuxuu isweydiinayaa adigu ma tihid qof farxad gelin kara hooyada iyo aabbaha.
waxyaabahan kale ama mobilkan ama filimkan la daawanayo ama waxaan qof kale u yimid oo ay la sheekaysanayaan, qofkii ihtimaam badan bay siinayaan, way la qoslayaan, wuu eegayaa ilmihii intaa. wuxuu u arkayaa markaa inaanu isagu ahayn qof qiimo leh oo qof farxad siin kara oo wax ka dhiman yihiin isaga ayuu isu arkayaa. marnaba eedda ma saaraya waalidkii ilmahan, laakiin ficil kasta ood samaysaa isagiibuu dhaawac dib ugu noqonaya. marka wuxuu arkayaa oo uu ku fikirayaa adigu kama qoslin kartid. aabbaha iyo hooyadaa markay wax kala haystaan way faraxsan way qoslayaan, laakiin adiga kulama qoslayaan haddii aanad ilmahaaga la ciyaarin. dareenkaasoo kalea ku dhalanaya, waayo haddii aad la ciyaarto unbuu qosol ku yimaadaa. iskama yimaado laba qof oo is ag taagan inay isla qoslaan, waa inuu wax ku yimaado. marka ilmihii taasaa niyadiisii gelaysa inaanu muhiim ahayn, inaanu ahayn qof hooyadii aabihii farxad gelin kara oo wax samayn kara. wuxuu ku dadaalayaa inuu ka shaqeeyo hooyadii aabihii siduu qosol uga qoslin lahaa. taasi hadhow markuu weynaado waxay la gelaysaa inuu isku dayo dadka kalena inuu farxad geliyo, waayo halkaasay kaga soo dhalatay oo ay kaga soo bilaabantay. dhinaca kale waxau noqonayaa qof istus ah oo mar walba raadinaya attentionka dadka, waayo attention muu helin. wuxuu ku fikiray halkaa markuu marayay 3 jir uu ahaa ama 2 jir ama 4 jir ama 5 jir bay kaga soo bilaabantay. muhiim ma tihid, attention ma haysatid oo laguma siinayo, soo jiido. carruurta qaar qalqaali bay isu bedelaano markay wax tuuraan oo kan kala tuuraan waxa laga yaabaa inay hooyadii soo jeesato tira war naga daa. waaw, hooyo way ku soo eegtay, way kula hadashay, attention bay ku siisay, samee mar kale wixii. mar kaluu haddana samaynayaa khaladaadkiibuu samaynayaa si uu attention u helo. tiibuu la weynaanayaa, saasuu khaladaadkii ku samaynayaa, ama wuxuu noqonayaa qof rabo mar walba in lasoo eego, isku daya hadalkiisu inuu dadka kale ka qosliyo, isku daya maaragtay in isaga mar walba la yidhaa heblaaya waxaa tiri ama hebel baa waxaa yidhi. dhinaca kale haddii uu qof barto ama xidhiidh jacayl ha ka dhexeeyo ama saaxiibtinimo caadi ha ka dhexayso ama haba isguursadaan oo 2 qof oo isla nool ha noqdaan, siduu doonaba qofkaasi ha ahaadee wuxuu isku dayayaa inuu qofkii mar walba isagu ilaashado. waayo isagu cid ilaalinaysa muu arag, cid dareenkiisii maxay hayday u soo jeeda muu arag. isagiibaa mar walba markaa dareenkii dadka ilaalinaya. isagu markaa wuxuu noqonayaa mar walba kala dhaawaco. wuxuu odhanayaa qofkan in badan baynu meelaha ku aragnaa, qofkan waxaasaan u sameeyey, waxaa kalean u sameeyey, waxaa kalean u sameeyey, sidaasaa laygu sameeyey. waayo qofkan isagoo loo baahnayn buu isagu sameynayay dadaalkan. wuxuu isku dhadhajinayaa qof aan u baahnayn. waxaa la yidhaahdaa afkan jarmalka abhängig buu noqday qofkaas, wuu ka lushaa calashaan qof kalunbuu ka lushaa oo wuxuu dareemaya inaanu keligii meel istaagi karin, oonu shakhsiyadiisu aanay waxba qabsan karin, wax noqon karin ilaa uu qof kale ku tiirsanaado ama ka laalaado mooyaane. marka abhängigkeitkaas ayaa ku dhacaya markaa ilmaha yarna. markuu weynaadana saasuu noqonaya, waayo waa mid yaraantii kasoo raacday. haddaba si aad waxyaabaha aynu soo sheegnay oo dhan uga badbaadiso ilmahaaga, waayo waan ogahay waalid kastoo ay daawanayaa ma jecla inuu calaamadahaas yeesho ilmihiisa uu imika korinaya uu dhalay. haddii aad doonayso ilmahaagu in aanu calaamadaha ku weynaanin oonu nabaradaa yeelan, kadibna uunu dhaqankiisu sidaa noqonin, ku darsa oo qofkan ilmahani ama qofkan weyn markuu sidan u dhaqmay mar walba isagu waa qof aan qanacsanayn, ma ku qanacsano nolosha uu ku jiro, waa isagu ma helaya wixii uu rabay. waalidna ma jecla noloshii ilmihiisa isagoona qanacsanayn inuu noolaado weligii. si arrimahaasoo dhan aad uga taxadirto, intan imika aynu kasoo sheekaynay beddelkeeda samee. ilmahaaga la qosol, ilmahaaga dareensii inaad usoo jeedo attention badan sii. ilmaha haddii adigu aanad siinin
muhiimad aanad siin, aanu kaa arkin dareenkaagu inuu usoo jeedo ama attention aanad siinin, aanad tusin sida uu muhiim kuugu yahay, ma dareemi karo. adigoo jecel ayaa haddana nabaradani ku dhici karaan, waayo waalid kastaaba khaladaad waxa uu sameeyaa isagoon ogeyn. ugu talagal inta badan waxba uma dhacaan. waalid kastaa wax wanaaji isagoo isla buu khaladka ugu weyn galaa, ama isagoon is ogeyn buu khaladku ka dhacaa. laakiin waa inuu qofku fikiro oo wax barto, yacni kororsado waxa uu isleeyahay waxaasaa kaa maqan. mana aha tarbiyadda caruurta iyo waxaasi wax aayar inta layska dhalo aad markiiba saas ku baran karto. si ilmahaaga markaa aanay ugu dhicin waxaasi, attention badan ha kaa helo, dareensii. haddii uu kula hadlo oo uu rabo inuu wax kuu sheego, haddii uu kuu baahan yahay, iska yara dhig moobilkaaga, tv-ga iska bakti, waayo isagaa kaaga muhiimsan marka xaqiiqda la eego. laakiin markaad iska sii daawato wixii aad iska sii qosasho, qof kale la sii sheekaysato, waxaa ku dhacaya isagana dhaawacyadaas. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduuceena markan. hoosta kusoo qora mawduucyada aad jeceshihiin inaan kasoo hadallo ee kale. tan iyo kulanti dambe iyo mawduuc kale waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.